kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada warka Burdheera Media qodobada ugu darkarona waxaa kamid ah dawladda oo digniin u dirtay dadka magaalada Muqdisho senator Faroole oo khilaaf uga digay xukuumadda iyo baarlamaanka Puntland Jubbaland oo amartay in talaabo laga qaado dadka wada kicinta dadweynaha iyo meedad askar Kenyaan qarax lagu dilay oo la geeyay Wajeer intaasi daawadayaal waxay ayeen qaar kamid ah qodobada warka aan maanta idin hayno haatan ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan aynu ku bilaabnay dawladda Soomaaliya ayaa digniin u dirtay dadka ku nool magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Bashiir Cabdi Maxamed Ameerika ayaa shacabka ku nool magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya uga digay inay guriyahooda ka kiriyaan xubno ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ee qaraxyada iyo weerarada ka fuliya magaalada Muqdisho waxa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay si weyn ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka isla markaana ay qaataan digniinta ah in aysan ogolaanin in guriyahooda ay ka kiriyaan maleeshiyaadka Al-Shabaab isagoo sii hadlay ayuu sheegay in dawladda Soomaaliya ay dejisay qorshe cad isla markaana ay dagaal kula jirto maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab shacabkana looga baahan yahay inay soo wargeliyaan cidii ay ka shakiyaan tiro dhowr jeer ah ayaa dawladda Soomaaliya waxa ay digniin ka soo saartay dadka guryaha ka kiriysanaya maleeshiyaadka Al-Shabaab hayeeshee aan weli maxkamad la soo taagin dadka ku eedeysan in guriyahooda ka kiriyaan xubno ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab senator Faroole ayaa khilaaf uga digay xukuumadda iyo baarlamaanka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole oo kamid ah xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka dalbaday xildhibaanada golaha wakiilada Puntland iyo xukuumadda Puntland inay dhexdooda u soo kala dhaxgelin khilaaf waxa uu sheegay senatorka in xildhibaanada dhalinyarada ah ee ku jira baarlamaanka Puntland ay muhiim tahay inay bartaan dastuurka Puntland iyo kan Soomaaliya si looga fogaado khilaaf isla markaana dadka ku hogaamiyaan wadada saxda ah dhinaca kale senator Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole oo u jawaabay odayaal dhawaan ku shiray magaalada Gaalkacyo kuwaas oo sheegay inay qaateen ku dhaqanka shariicada islaamka waxa uu sheegay in aysan u yeerin dadka dhibaatada ka abuuraya deegaanada Puntland hadalkan Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole madaxweynihii hore ee Puntland ahna xildhibaan ka tirsan aqalka sare ayaa waxa uu ka jeediyay furitaankii shalay ee kulankii 44aad ee golaha wakiilada Puntland Jubbaland ayaa amartay in talaabo laga qaado dadka wada kicinta dadweynaha war-saxaafadeed ka soo baxay maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa loogu digay dadka wada kicinta dadweynaha iyo qalqalgelinta amniga ee ku sugan deegaanada maamulka Puntland waxa war-saxaafadeedka lagu sheegay in xiriir ilaalinta maamulka Jubbaland ay talaabo ka qaadi doonto cid kasta oo ku lug yeelata kana qayb qaadata kicinta bulshada iyo falalidii ku amniga ugu dambeyn meedad askar Kenyaan ah oo qarax lagu dilay ayaa la geeyay magaalada Wajeer duurnimadii shalay oo Sabti ahayd ayaa askar ka tirsan ciidamada Kenya waxa qarax lagu eegtay inta u dhaxaysa deegaanada Qorof Xaraar iyo Konton oo aad ugu dhow xadka ay Kenya la wadaagto Soomaaliya in ka badan 10 askari oo Kenyaan ah ayaa qaraxaasi ku geeriyooday kuwaasi oo saarnaa gaadiidka qaraxa la eegtay waxaana qaar kamid ah askarta qaraxaasi ku geeriyootay oo gaaraya ilaa 3 la geeyay magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo deegaan ahaan ay ka soo jeedaan eelada askarta geeriyootay saraakiisha iyo maamulka magaalada Wajeer ayaa ku sugan goobta la geeyay meydadka waxaana ay sheegeen inay aad uga xun yihiin askarta ay qaraxa ku dileen maleeshiyaadka Al-Shabaab ma ahan markii ugu horeysay oo ciidamo ka tirsan booliska iyo militariga Kenya lagu weeraro deegaano dhaca xadka Kenya ay la wadaagto Soomaaliya waxaana qaraxii shalay sheegtay maleeshiyaadka Al-Shabaab iyaga oo sheegtay inay dileen 12 ka tirsan ciidamada Kenya oo qaraxa ay la eegteen hayeeshee saraakiisha ciidamada Kenya ay qariyeen 10 askari guud ahaan daawadayaal war wixii dalka daafaca caalamka naga soo gaaray waa naga intaas fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar barta aan YouTube ku leenahay ee Burdheera